Asalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Barnaamijka qodobkan waxaan ku fiirin doonaa kooxda ku guuleysan doonta tartanka horyaalka English Premier League maadaama ay jiraan kooxo badan ee ku tartamaya horyaalkaasi. Tartanka horyaalka English Premier League ayaa meel xiise leh marayay kahor intaan la aadin fasaxa xulalka, waxaana hogaanka u haysaa kooxda Arsenal oo qaab ciyaareed fiican ku jirta sanadkan. Tartanka ayaa adkaan doona kulamada soo socda maadaama kulamada qaar ay yihiin kulamo adag oo kooxaha waaweyn ay wada ciyaarayaan. Fasaxa kadib Arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda Tottenham halka kooxda Manchester City iyadana ay la ciyaari doonto kooxda Manchester United. Haddaba sanadkan ayaa ku guuleysan doona tartanka horyaalka English Premier League inkastoo uu weli bilow yahay tartanka horyaalka. Kooxda Liverpool oo loogu bartay sanadihii ugu dambeeyay in ay Manchester City kula tartanto horyaalka English Premier League waxay sanadkan ay ku jiraan qaab ciyaareed aad u liita. Dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin sababaha kooxda qaab ciyaareedka liita ay ugu jiraan waxaa ka mid ah iibintii Sadio Mane iyo dhibaatooyinka dhaawacyada ee qaar ka mid ah xidigaha kooxda Liverpool, waxaana dadka qaar ay sheegayaan in qaab ciyaareedka liita kooxda uu sabab u yahay xidiga kooxdaasi ee Darwin Núñez kaasi oo qaab ciyaareed liita uu ku jiro. Darwin Núñez ayaa beesadii ay kasoo iibisay kooxdiisii qaab ciyaareedkii looga bartay markii uu joogay kooxdiisa hore aan kusoo bandhigin kooxda Liverpool. Waxaan halkan kusoo bandhigi doonaa koox walba sababaha ka caawinaya ku guuleysiga horyaalka English Premier League. Kooxda Arsenal sanadkan waxay ku jiraan qaab ciyaareed aad u fiican oo soo jiitay taageerayaasha kooxda. Waxyaabaha caawinaya kooxda Arsenal waxaa ka mid ah sida ay u galeen suuqii kaliibsiga ciyaartooyda ayna soo qaateen xidiga muhiim u noqday shaxda kooxda oo kooxda ka caawinaya guulaha ilaa haatan ay gaarayso. Kooxda midda kale waxyaabaha caawinaya waxaa ka mid ah Arsenal markii hore waxay haystay xidiga daayeer oo tayo leh, sanadkii horena ku dhawaaday inay u soo baxaan tartanka Champions League. Kooxda labaad waa kooxda Manchester City. Kooxda Manchester City oo sanadihii ugu dambeeyay ku guuleysanaysay tartanka horyaalka Premier League ayaa mar kale waxay doonayaan in ay difaacdaan oo markii saddexaad taariikhdooda ay ku guuleystaan horyaalka English Premier League maadaama kooxda dhowr jeer ay ku guuleysatay laakiin ay suurtagali weysay in 3 jeer oo xiriir ah ay ku guuleystaan. Waxyaabaha kooxda caawinaya waxaa ka mid ah Erling Haaland oo bandhig aad u fiican ka sameeyay kooxda Manchester City, waxaana uu hogaaminayaa tartanka gool dhalinta Premier League. Kooxda ayaa dooneysa in ay jebiso rikoorka Manchester United ee hore u jebisay oo ah in 3 jeer oo xiriir ah ay qaaday Manchester United tartanka horyaalka English Premier League. Manchester City ayaa dooneysa in rikoorkaasi ay jebiso inkastoo markii hore ay ku fashilantay in 3 jeer oo xiriir ay ku guuleystaan tartanka horyaalka English Premier League. Kooxda saddexaad waa kooxda Tottenham oo sanadkan si fiican u gashay suuqii kaliibsiga ciyaartooyda, waxayna soo iibsadeen xidiga tayo leh. Conte oo hogaaminaya kooxdaasi waxa uu doonayaa inuu ku guuleysto tartanka horyaalka English Premier League maadaama kooxo kala duwan uu kula guuleystay koobabka dalalkaasi ay ka ciyaarayeen, waxaana uu hore la soo guuleystay kooxda Chelsea, sidoo kale kooxda Inter Milan iyo kooxda Juventus oo 3 sano xiriir u qaaday horyaalka dalkaasi. waxaana uu haatan uu doonayaa inuu kula guuleysto kooxda Tottenham tartanka horyaalka English Premier League. Kooxda afraad ku jirta waa kooxda Manchester United. Manchester United ayaa sanadkan ku bilaabatay qaab ciyaareed aad u liita inkastoo labadii kulan ee hore horyaalka English Premier League laga baday, inkastoo markii dambe ay soo kabsadeen oo kooxda ay ku soo laabatay wadada guulaha. Tababaraha kooxdaasi Erik ten Hag ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay meel fiican ay ka gaari doonto tartanka horyaalka English Premier League miseba ay ku guuleysan doonto tartankaasi. Manchester United ayaa haatan waxa uu ku socdaa isbedel aad u wanaagsan oo tababarahooda Erik ten Hag juhdi badan uu ku bixinayo sidii uu guulo uga gaari lahaa kooxaha weyn ee horyaalka English Premier League. Kooxda Chelsea oo sanadkan ay cirisay tababaraheeda Thomas Tuchel oo lagu bedelay tababare Potter ayaa
waxaa la sheegayaa in sanadkan kooxda Chelsea aysan ka mid noqon doonin kooxaha afarta sare ee horyaalka English Premier League. Kooxda Chelsea ayaa sanadkan ku bilaabatay qaab ciyaareed aad u liita oo sababay in tababarihii kooxdaasi ee Thomas Tuchel shaqada tababarnimo ee kooxdaasi laga ceeriyo, waxaana hadda loo magacaabay Potter oo kooxda hogaaminaya 5 sano ee soo socota. milkiilaha kooxda Chelsea waxa uu sheegay in marka la gaaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha January kooxdiisa ay soo iibsan doonto xidiga badan oo ku soo celin kara tartanka qaaradda Yurub, inkastoo aan la ogeyn meesha uu ku dhamaan doono xaalka kooxda Chelsea. dhibaatada haysata kooxda Liverpool cid walba ayaa iska oga. Liverpool waxaa loogu bartay in Manchester City ay kula tartamaan tartanka horyaalka English Premier League. sanadkan waxaa yar rajada ay ka qabaan ku guuleysashada horyaalka English Premier League. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha oo maanta aan ku soo qaadanay kooxda ku guuleysan karta tartanka horyaalka English Premier League. fadlan hadaad ku cusub tahay channelka like noo saar, subscribe share gareysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. mahadsanidina.